waxaan wanaagsan asxaabteena qalinka markale barnaamijkeennii excelka waxaan idin tusaya caawa ardayda waxaan wadaa war weyn markaas waxaan rajeynaa inay si fiican uga faa'iidaysanayaan barnaamijkan excelka caawa ardayda ayuu ku socdaa bay ka dhigan tahay markaas la socod wanaagsan waxaan iskuullada ku dhiganaa sida caadiga square rootka sida loo shaqeeyo iyo sida looga saaro rootka amaba se power maxay number la dul saaray iminka maxaa la dhahdaa 3 power 3 oo kale intuu noqonayo ayaa mar walbana na weydiin jiray iskuullada markaas qaabka loo shaqeeyo si sahlan adoo excelka isticmaalaya ayaan halkan idigu tusaya markaas la socod wanaagsan marka koowaad equal to baan leenahay marka koowaad waxaan square-kaan shaqeynaa square rootka qaaba loo shaqeeyo equal to baan leenahay power baan leenahay marka hore powerkaan shaqeynaynaa power ayaan leenahay powerka wax kale lama jeedno labaan ku jibaaraynaa bay ka dhigan tahay saddex haddaan ku jibaaro lafteeda waana idin tusi doonaa saasaad leedihiin maykan koowaad ee wax in lagu jibaaro doona baad kalik leedihiin koomaad gashanaysaan numberka lagu jibaarayo amaba se intuu doona ha noqdo 4 buu noqon 5 buu 3 buu noqon karaa ayaad ku dhufan kadib f4 ayaad leedihiin absolute value aad xidhanaysaan inter ayaad leedihiin hal jibaaran ama hal lagu dhifta hal un buu imanayaa saas darteed hal buu kuu soo saarayaa kuwa kale inuu kuu shaqeeyo ayaan rajeynaya markaas uu noo shaqeeyay ka dhigan tahay markaas iminka 2 square waa 4 3 square ama saddex jibaaran waa 9 afar jibaaran waa 16 shan jibaar waa saasaa loogu shaqeynayaa ka dhigan tahay markaas waa square iminka halkan haddaan ka dhigno bal ka warrama 3 haddaan ka dhigno cube buu noogu shaqeynayaa cube buu noogu shaqeynayaa maxaa la dhahdaa iminka tusaale maxaa la dhahaa halkan 3 saddex jeer ah 3 lagu dhuftay waxay ka dhigan tahay waa 3 saddex jeer si kale haddaan idiin fahamsiiyo equal to baan leenahay 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 3 kale waan idin waaweyn inter markaan dhahno wuxuu halkaas waan yar waaweynayaa 27 soo saaraya waxay ka dhigan tahay numberkan oo la saddex jibaaray numberkan oo saddex jibaarka halkan waad bedelan karaysaa afar jibaar baad ka dhigan karaysaa shan jibaar baad ka dhigan karaysaa saasaad ku wadaysaa iminka tiradan waa tirada iskuullada lanagu weydiiyo kolley inaad fahamsantihiin baan u malaynaya 2 squareka waa kan power 3 waa kan power 4 oo kale waa kan waa 1 power 4 waa 1 kun 2 power 4 waa 16 kanaan ku wada dhufanay ka dhigan tahay marka qaabka loo shaqeynayay inaad fahamteen baan u malayn mar kalean idinku soo celinaya si aad faham uga haysataan fiican squarekan marka hore ku shaqeynaynaa ama labaan ku dhufan laba jibaarkaan ku dhufana equal to baan leenahay tirada lagu jibaarayaad marka hore ku dhufanaysaa equal to ba marka hore qoranaysaa equal to tirada lagu jibaarayo ayaad ku dhufanaysaa power baad leedahay marka hore tirada in lagu jibaaro aad u baahan tahay ayaad click leedahay koomaad leedahay ti lagugu jibaarayaad ku dhufanaysaa f4 baad leedahay haddaad laptop isticmaalaysid haddaad laptop isticmaalayn oo desktop isticmaalaysidna fn halka yar ku qorantay hoose iyo f4 kaas isku taabanaysaa enter baad leedahay hal waa number ma dooriyo saas darteed hal marka hal lagu dhufto waa iska halkii un 2 square ah waa 4 maxaa 3 square waa 9 saasaa loo shaqeeyaa markaas waad bedeli karaysaan oo iminka power 3 baad ka dhigi karaysaan 1 power 3 waa 1 kun waxba kama bedelayo 2 power 3 waa 8 2 power 4 3 power 3 waa 27 4 power 3 64 saasaa lagu wadi karaa saasaa lagu wadaa ilaa iyo maxaa la dhahaa halka ugu dambeysa aad ka gaadhisid qaabkan sidee baa looga saari karaa iminka kuwan sida caadiga ah haddaan square uu noo yahay nambaradan squareka sida squareka looga saaro square rootkana halkan aan idinku tusaa equal to yaad dhahaysaan square root ayaad leedihiin oo lasoo gaabiyo xurufta ugu horeysa laga soo qaatay markaas kan koowaad baad click iska leedihiin enter ayaad leedihiin enter markaa dhahdaan halkan ayaad imanaysaan hoos iyaad u imanaysaan marka waxay ka dhigan tahay tiradan waa tan oo square ah 144 waa 12 lagu dhiftay 12 bay ka dhigan tahay 121 waa 11 lagu dhiftay 11 bay ka dhigan tahay calashan squareka waa saas ama laba jibaar marka inaad fahamteen baan rajeynaya asxaabtayda qaaliga marka barnaamijkan barnaamijyada kale sidaa ula socdaa barnaamijka follow ba soo dhahsan haddaad barnaamijkan kusoo gaadho aad ka heshaan aad baad umahadsantihiin dhammaantiin asxaabtayda qaaliga gobol walba goor walba aad joogtaan aad baad umahadsantihiin